مركبون ونساء والشرع حمد الحوينات جمهورية الفدرالية الصومالية دكتور عبد الرحمن محمد عبد الحاشي مرشفتا odayaasha hooyooyinka aqoon-yahanada dhalinyarada dhammaantiin waxaan igu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaamka bacdi bacdama aynu nahay ummad muslima waxaa muqadisa muhiima kuwan kastoo aynu samaysano isugu dhimaadno inaynu ku furanno aayadaha qur-aanka kariimka waxaan jecelahay inaan ku soo dhoweeyo
sheekh mukhtaar sheekh ibraahim si loogu furo munaasabaddeena caawa aayado qur-aan sheekh ku soo dhowow أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني وأحبتي في الله، مجتمعا قراء بدل مباشر سويه هي مشرحة دكتور عبد الرحمن نمانتي وحالي وسلام يا سلامة السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت اسكتي waxaan jeclahay inaan kelmadii oo kooban aan soo jeediyo inta aysan bilaabanin howlaha muhiimka oo faraha badan oo maanta meeshan la isugu yimid. kelmadaas aan soo jeedinayo waxay xusaysaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed, waxaa kale oo xusaysaa dhammaan ragga musharaxiinta oo raba inay mustaqbalka waxa uga ahaatee. waxaan jeclahay dhowr kelmadood inaan tilmaamo waqtiga oo kooban dartii. dhowrka kelmadood aan tilmaamayo waxa weeye mas-uuliyaddu qiimaha ay leedahay haddii ruuxa waxa weeye mas-uulka uu ka soo baxo, iyo dhibaatada ay leedahay ruuxa mas-uuliyadda haddii uu ka soo bixi waayo. ruuxa ummadda mas-uulka u noqonaya maxaa laga rabaa sidiisaba? cid kasta waxa weeye mas-uuliyad ma noqon kartaa oo mas-uuliyad waxa weeye ma qaadi kartaa. sidaadaba waxa weeye haddaynu nahay mujtamaca Soomaaliyeed xagaynu waxa weeyaan aynu joognaa. ayna naxnu الآن waqtigan hadda xaaliga ah xagaynu joognaa? waa su-aasha koowaad oo loo baahan yahay ruux kasta oo Soomaaliya maanta la isweydiiyey. su-aasha labaad waxa weeyaan ilaa ayna nuriid an nasil, xageen rabnaa inaan gaarno? su-aasha saddexaad waxa weeye kayfa nasil, seen ku gaaraynaa meesha aan rabno? tabara haddii aan ka jawaabno taxta sifir baynu nahay maanta. ummad sifta ma nihin marka loo fiiriyo adduunka maanta waxaa levelku maraya. qodobka labaad waxa weeyaan seen ku gaaraynaa? waxaynu ku gaaraynaa inaynu midowno oo aynu ka tanaasulno waxyaabaha maanta ummaddeenu mabda ay ka dhigatay oo ah waxa weeyaan inay qolaba meel ay aado. waxaa loo baahan yahay marka in ruux kasta oo waxa weeye mas-uul ah uu dareemo arrintaas ayada. ruuxu markuu mas-uul noqonayo waxaa looga baahan yahay badeen culimada dhowr arrimood iyagoo waxa weeye diinta kala soo dhacay. dhowrka arrimood oo loo baahan yahay: kow, ninka mas-uulka noqonaya waa inuu noqdo nin qawi ah, nin adag inuu yahay wey, daciif aan mabda'a u aaminsan yahay caddaysan karin, oo ummad aan waxba la qaybsan karin, oo dad aan u sheegi karin waxa mabda'a u aaminsan yahay ummad ma hogaamin karo. waa inuu qawi yahay. haddii aad arrinkaa fiirisaan qur-aanka haddaad dib ugu noqotaan aad arkaysaan qur-aanka ilaahi tabaaraka wa tacala soo arrinkaa loo sheekeeyey. waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay u maleeyaan ninka wax maamulaya iyo waxyaaba wax ku maamulahaya iyo dad waxay soo qoraanaya inay u fiican tahay. haddaad diinta dib u fiirisaan waxyaabaha muhiimka ah oo muwaasafaadka ruuxa qaa'idka laga rabo dhan diinteenu si fiican bay u dhigtay. laakiin dadkeenu waxa weeyaan ama dadka muslimiinta inta badan diinta aqoonta nooma laha. saa darteed waxay isaga maleeyaan qur-aanka in uu xafladaha lagu furo ama waxyaabaha meelaha munaasabadii ruux markuu xanuunsanaya waa hakada. qawi waa inuu yahay. masalada labaad looga baahan yahay waa inuu aamin yahay. ruux aamin aynu yahay. waxaad arkaysaan maanta nin kasta ummaddeena madax u noqda waxa koowaad gaaladii oo ka soo dacwoonaysaba waxay leeyihin nin haabaan ah oo afarta howlba guban oo asagu farihiisa kala xadaya oo afar jeebla ah ayaad noo dhiibteen oo ummadii waxaa weeyaan hadda kuwa jooga oo madaxda ah weliya. maantada waxaan ku arkayay miiraan waxaan ku arkayay ragga madaxda oo ugu sarreeya dowladda inay intaas waxaa weeyaan hanti ah lacag aad u badan oo lacagda idinkuna wada aragteen in loo haysto macnaha. Soomaaliyeed waxaa weeye hogaaminaya inay dad karti leh ahaayeen. ummadii xilligaa joogtay ayagu waxaa weeye hogaamin jiray. laakiin maanta waxaa soo hadhay Soomaali waxaa ka soo hadhay laakiin asalkiisu Afrikaan baa ninkaas. madaxweyne markaa Kenya joogay waxaa weeye Daniel Armoy ayaa soo dhaweeyay marka waxoogaa inuu tafaahum la sameeyo oo niman Afrikaan oo ilmaadeer oo shaahwada cadaan oo taas u rabay. laakiin ninka nin ka sarreeyo oo wadan waxaa weeye
inaynu ka nahay waxaa weeye wax kaleeto sidaa darteed waxaa loo baahan yahay ninku inuu yahay nin xor ah nin kastoo ku fakara inuu ummadda Soomaaliya hogaamiyo waa in maskaxdaadu ay shaqayso oo noqoto xor oodan addoon u noqonin waxaa weeyaan Afrikaan addoon aadan u noqonin anybody oo adduunka jooga cid doona aariyo waa arrinta keliya dadka Soomaalida ay ku amaanan yihiin hadda ku qaadan yihiin nin waxaa weeye carab oo Soomaalida si fiican ku yaqaana ay sheegay wuxuu yidhi dhowr arrimood ayaan Soomaalida kula yaabay weligiina ma arag buu ruux muwasafaadka wuxuu yidhi ninka Soomaaliga ah ruux kastoo adduunka jooga wuu iskala weeyahay waa arrinta aan la yaabay arrintaas ayada macna asagoo nin yar oo hadda yimid oo dhalinyara oo aan aqoonin nin Soomaaliya oo taragooda Soomaali ku arkay macna hadduu imanaya leeysan xagga laga soo qaataa uu leeyahay wuxuu leeyahay waxaa weeye California macad uu galaya uu soo qaadanaya maalinka dambe waxaa laga yaabaa waxaa weeye direction xataa si fiican ma aqrin karo taragooda wuxuu shaqeynaya kabaniga uu shaqeynaya ninka kabaniga iskale oo waxaa weeyaan u ah يعني supervisor هو أسيء إسكالوي أتوه حاوي وتشكتبه كأنه هذا الكوكو قلعيه ورمحاجي دي motivation سما فرهذا ولا ولا أسيس على يا معلم. تفكر معك كلام تذكر الصومالية فأسكال لكن حلو ده هي وحاوي إن أي مقطع يركش على لو ده يعني كسر الصومالية وحاوي وملاح وياه هذا قربانين ملاح هذا اللي هو يبي هي نوش كي وعيري وأيدي جميسي وهيستي وحاوي وضعك أفريقيا كينيا سوماليا دكتور. marka waxaan ka farayaa waqtiga balanay inaan munaasabada caawila marno way ka soo yaraadaanay laakiin waxaan ku dadaalaynaa inaan waqtiga dhaqaaleysano haddii ilaahay inankiis leeyahay waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo oo munaasabada inoo furo oday Cabdullaahi Nuur Farcade بسم الله الرحمن الرحيم بشر غيبين كانت جوا سعادتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شريف قوي يحدث الوقت على الله إلى اليوم مركا فين دير الأقوال ما يستوب حفلت ويوفر عنك هاي هذا في جوعويا حفلت فرق عاشي ما حاولتون وين كاننا wuxuu bulshada u yahay dowladda federaalka ee Soomaaliya baahida inaga inoo keentay oo inaga rabo waxa weeyaan inuu arko dadkiisu inuu u diyaarsan yahay oo rabitaanka ay rabaan musharaxnimadiisa inuu dadkiisa u diyaarsan yahay inuu arko oo inuu soo baxo horta waa inuu baxo marka inaga inta inaga rabo maalinta dowladda federaalka iyo nimanka la soo xiri doono ee baarlamaanka raggaas wax ka raba waxaan rajaynaynaa inuu ku guuleysto waxaan kaloo idin sheegayaa isagu ninkan waa nin mutacalin aqoontiisa hagaysa waa nin kulmiisa dowladihii caalamka ugu waaweynaa raggii hoggaanka u soo qabtay ee badbaadiya ee midibada u taagay waxay ahaayeen iskuulka oo ka soo baxay ka soo baxay colonies bay ahaayeen waa nin hawsha ka soo bixi karaya sida aynu xogtiisa ku hayno ama aqoontiisa marka dee waa taageerayna miyaynu diidana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السيدة عبد الله نور فرعده وحا عاوز شرف ومعانتي نوضا دمان تيبا إنه نرجعه معلم وحا جعلها بعدما أيضا قربها متكون لأنه بلغت هاستي ردمكي عليكي صومالي إنه كحجي سنو فنانتو لأنه جميع
يلي سبحان الله حسن وحيري ما كان الله قل لقال كرا مرون كان أرضا كأمريكا ما روح بغير الله أبور كرا ما يرى على أنبات كرا مركو إنتهي أيوه إنتهي مدي مركان مرض كشري محاوش بار عليه قصري كان ولا لين إنتهي شكرا وحنا كيري يعني كبير كريم أرجسان في عبد الرحمن إنه ملايو قصري كان ملايين إنتهي شكرا قولنا الدول الجميلة لوغان وحقاقان وهرم مرة إلهي وحن ترسلنا إنه أمنا هو حدقي سكيني على رقتنا السلام عليكم هذه المزية هاي فرناتك على البناء waxaan marka cusubaya dadka albaabka furan in la soo xiro gudahana la soo galo sababtoo hadalku banaanku baxaya marka la soo galo gudaha albaabka la soo xiro markaan isha saa idin mariyey waxaan idinka yala akhristay in maskaxdayda ay ku wada jirto siyaasiga weyn ee rugcadaaga ah maxamed cabdi xaashi aad isweydiinaysaan huus cabdiraxmaan waxaa runtii nasiib wanaaga inay caawa go-ayna u fadhiyaan galaas meydkiisii jaanibka carruurta isla soo koreen carruurnimo isla soo koreen beeruwaale markhaatigiisa meelka bugeeya inaynu caawa markhaatigii haysano run ahaantii cv-ga dhagtar cabdiraxmaan halkan kama soo koogi karno laakiin waxaan jeclaan lahaa iyadoo baris iyo koban hagayda inuu loo fadhiyo injineer cabdilqaadir axmed xaandulle cabdilqaadir kusoo dhaweynayna musharaxa cabdiraxmaan maxamed cabdi xaashi oo ina soo booqday oo sidii marti loo soo dhaweyn jiray anu soo dhaweynay waxaa meesha qanuuni waxaa hordhac yar iga dhoobay ama intaa laba sheegeen shariif baa sheegay inaan muliya cabdiraxmaan aan kalaas midahayn dhaqanka soomaaliyeed labada ninay geeljiraha ah ee geela wada dhaaqa marka ay geela wada xeriyaan ee ay hablaha adhiga la jooga la soo haasaawaan ee nin walba noloshiisu ay halaqaadaan ugu xakamadaan ka jecel yihiin labada askari ee dhiboo wada qaatee la soo wada taabaraan dadka way isaga dhow yihiin ninkan cabdiraxmaan caruurnimadii iyo waktigii aan la islaawi jirin ee la wada ciyaari jiray baanu isla kacnay waxaanu nolosheeda ka bilownay laasacaano waxaanu elementary ka bilownay 1964 dad iga waawey baa fadhiyo la bixi maayo maanta waa yardahoo afarta jirka maanta jooga caruur isu haysta halkana in badan afarta jir aan leeyahay qaangaari isu haysta annana qolada musqarniga gaadhay baanu hayo waxba ma qaano cabdiraxmaan wuxuu dhashay 1955 wuxuu ka soo jeedaa qoys khayru umuur awsabaha labana waa ka weyntahay labana waa ka yartay xil badan oo ninkaa dhexda ku jira halkii jeer uusan dhibaato badan oo qasan baa ayuu nasiib u yeeshay waxbarashada elementariga ee aanu gud muxuu ahaa childhood age isla soo managelayay wuxuu soo qabtay xamar waxbarashadiisii dhammaanteed ilaa dugsiga sare wuxuu ahaa nin reer xamar ah oo reer hodon ah oo iskuullo elementary iyo intermediate iyo secondary oo banaadir iyo 15 mayba isu maray wuxuu ahaa raggii nasiibka u yeeshay waktigii waxbarashadu iyo macallinku masaraf lahaa waxbarashaduna qiimo lahayd markii uu dugsiga sare ka baxay anana aanu waqooyi dhow ugu caddaado intaanu geel soo raacaynay isna uu xamal diga qalow joogay aakhirkii xalanaana lagu cadiyey xalanaanu 1975 kii wada galo waa kala hadaafnay shaqo qaran baa la kala qabtay haddana waa kala hadaafnay cabdiraxmaan lama oran karo mararka qaarkood si wanaagsan bay ahayd wuxuu ahaa dadkii barasho jacayl dartii yiri waxaan doonayaa inaan waxbarasho dibadda gaarsiiyo wuxuu yimi maraykan early on waqti aada u fogaano 78 ku beegan wuxuu yimi New York
wuxuu galay jaamacad New York ku taala oo la yiraahdo Pace University wuxuu qaatay degree accounting ayaa majorkiisu ahaa oo ah undergraduate studies inaa nasiib badan dadaal badan waqti uu saaciday ayaana leh waalidkii u duceeyeen buu ahaayee shaqooyin markaa la heli karay oo maalinka waddanka ugu waaweyn iyo investment bank firms hadii jeer maqalle ee bailoutska bixiya kuwa wax ka garanaysaan oo qaarkood la yidhaha Price Waterhouse Waterhouse iyo Citibank ayuu sideetanadii ka shaqayn jiray isagoo ah senior financial analyst wuxuu tago aan usoo waqti qaato waqtigaas waana aan qolada nasiibka badan ee Soomaali dowladdii aynu ku baraarnay ee aynu inaga burburtay maanta aynu la wada hawayna dhibaatada haysata waqti waxbarashada ee hooseysa baan ka mid ahay Abdiraxmaan we joined back at that time muddo ka dhacay 15 sannadood waa in yar burburkii ka hor iyo in badan oo aynu ka dambeynay wuxuu u shaqayn jiray banka adduunka ee World Bank waa muddo 15 sannadooda wuxuu mas'uul ka ahaa treasury operationska amuraha assets iyo liability-ga wuxuu maamuli jiray oo la yaabi doonta arrintaa wax aan u marinayo intaan noolahay inayna figurka qori karayn 115 bilyan balance sheet portfolio gacanta ku hayn jiray Cabdiraxmaan Xaashi waxaa markii uu konton jirsaday oo halkaa joogay ayaa baankii in badan baan ku soo caybinayay adduunka saddexaad dhibaataa naga haysata adigii noocaaga intaa waxaan u haynay inaad noo soo tababartaan oo aad isu diyaarisaan leadershipka meelihii aad ka soo jeedeen ee ruudkiinu ahaa waxay ku dhiirigeliyeen waxaan u malaynayaa shadkii koowaad ee maanta dhakhtarkaa inala fadhiya niyad geliyey waxay ka timi baanka adduunka oo dalkii uu ka soo jeeday arkay inuu wareersan yahay Cabdiraxmaan waxaa awood loo siiyey annagaa ka mas-uula waxaad u baahan tahay waanu kuu qoranaynaa waxbarashadii ayuu u lalalaxaadsaday isaga oo weli consultant ah oo financial iyo economic consultant ah oo ilaa haddeerna kala taliya wax allaala wixii hay'adaha international firmska Cabdiraxmaan wuxuu mar qura nin waxbarasho jecel buu ahaaye oo u lalalaxaadsaday inuu waxbarashadiisa baarka sare soo taabto wuxuu qaatay 2 degree oo 2 institution oo aan ku tahay la yaqaano wuxuu qaatay 2 masters 2 degree oo masters ayuu ka wada qaatay isku mar wuxuuna qaatay 2003 isagoo shaqeeya ayuu haddana jaamacadda labada degree oo kala master of arts in applied economics iyo master of science in economics Cabdiraxmaan halkii uu ka sii waday George Mason University oo la wada yaqaano Fairfax Virginia ku taala ayuu PhD-giisii 2010 qaatay waa muddo aan hadda 2 sano ka joogno waxaan idin sheegayaa arrintaa doctorka iyo titleka la siiyay hadda afsariyo shariif qofku wuxuu sameyn lagu sheegay ama faafta engineer ma yihiin shariifna waa khaldan laakiin Cabdiraxmaan waa dhagtar dhawaqa بسم الله الرحمن الرحيم وليال waxaan jeclahay marka ugu horeysa in aan u mahadceliyo dhammaantiin dadkiina sharafta leh ee nagala soo qaybgalay xafladda gaar ahaan dadkii soo qabanqaabiyey xafladda waxaa kaloo jeclahay in aan aada ugu mahadceliyo odayaasha magaalada Columbus oo halkan fadhiya waanadoodii iyo taladoodii iyo dhiirigelintoodii aada iyo aad baad ugu mahadsantihiin insha allah waxaan rajaynayaa inaan noqdo qof u qalba kalsoonida ay u qabtaan marka ugu horreeya waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
walaalayaal waqtigii salaada la joogaa wax badanna waa fadhideen ma doonayo inaan hadalkayga ku dheeraado haddaan wixiisa ii soo koobo waa laba qaybood oo hadalkaygu noqonayaa qaybta hore waxa aan rabaa inaan sheego sababaha isu sharaxayo madaxweyne inaan noqdo qaybta labaad waxaan ka hadlayaa haddii eebeyno waan ku guulaysto jagadaas waxyaalihii aan qaban lahaa ama 3 ama 5 6 qodobo ugu waaweyn oo aan aaminsanahay in waddankeenu u baahan yahay walaalayaal waxaan ugu tartamayaa hoggaanka ugu sarreeya qarankeena maxaa yeelay waxaan u heelanahay inaan soo celiyo sharaftii karaamadii iyo ciskii ummadda soomaaliyeed ay lahayd tayada hoggaamiyaha wanaagsan waa inuu yeeshaa daacadnimo haybad iyo inuu noqdo tusaale wanaagsan oo dadka inteeda kale ku daydaan waxaan rajeynayaa in aan noqdo kii ku sifooba inuu yeesho talooyinka lagu yaqaano hoggaamiyaha wanaagsan walaalayaal waxaan u tartamayaa hoggaanka ugu sarreeya qarankeena maxaa yeelay waxaan u heelanahay inaan dib ugu soo celiyo Soomaaliya dowlad wanaagii lagu yaqaanay maamulka hufan ee la iska dhex arki karo oo lagu yaqaan xisaabta iyo dhowrista haybadda maaliyadda waxaa nasiib darro ah oo farxumo weyn ah in dunida waddankeena looga yaqaano waddanka ugu musuqmaasuqa badan waxaan ballan qaadayaa hortiida ilaahay hortiisa haddii eebeyno waan ku guulaysto jagadaas in aan ka dhigo la dagaalanka musuqmaasuqa arrimaha ugu horreeya wax ka qabto saboolnimada waxa aan dhammaantiin ogtihiin oo nasiib darro ah musuqmaasuqu waxa uu niyad jab ku sameeyaa waddamada aan saaxiibka nahay ee doonaya waddankeena inay caawiyaan si ummadda Soomaaliyeed loogu adeego waxa kale oo musuqmaasuqu niyad jab ku sameeyaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee xalaasha ah ee doonaya inay cashuurta bixiyaan taasoo laga yaabo inay ku kalifto inay cashuurta bixin ama ay isku dayaan inay ka warwareegaan walaalayaal waxaan isugu sharaxayaa hoggaanka ugu sarreeya qarankeena maxaa yeelay waxaan u heelanahay inaan dib ugu soo celiyo gacanta shacbiga Soomaaliyeed taladii iyo maamulkii waddanka Soomaaliyeed haddii eebeyno oo aan jagada ku guulaysto ma dhici doonto dadkii wakiilada ka ah ummadda Soomaaliyeed in taladii waddanka la barbar mariyo walaalayaal waxaa kaloo aan idiin ballan qaadayaa in xoogayga iyo taladayda aan isugu geeyo sidii ummadda Soomaaliyeed loogu adeegi lahaa ma dhici doonto inaan ku lug yeesho wax aniga ii gaara daana ama ha noqoto wax aniga ii khaasan inaan ku lug yeesho ma dhici doonto walaalayaal waddan aayihiisu waa dhalinyarada marka fariintan waxaan u dirayaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan haddii ay joogaan waddanka gudihiisa ama waddanka dabadiisa haddii ay qurbaha joogaan ama haddii ay joogaan xeryaha qaxootiga waxaan dhalinyarada Soomaaliyeed ku boorinayaa aan ku leeyahay waddankiinii maanta maalin uu iiga baahan weeyahay ma jirto waxaan inagula talinayaa inaguna boorinayaa inaad waddanka Soomaaliyeed ku soo noqotaan oo aad ka qayb gashaan dhismihiisa waxyaalaha dhalinyarada qaban karto waxaa ka mid a inay ka qayb galaan siday u samayn lahaayeen ururada siyaasadda bulshada rayidka amba ay ka qayb geli lahaayeen ganacsiga iyo baamushtarka iyo siyaabihii kale oo ay uga qayb geli lahaayeen sidii waddanka wax looga qaban lahaa walaalayaal
dhibaatada keliya oo waddankeena baabi'in karta waa haddii la waayo midnimada soomaaliyeed. waxa aan ii sheegayaa haddii ummadda soomaaliyeed ay midaysan tahay dhibaato kasta iyo caqalad kastoona hor timaada ummadda soomaaliyeed way xalili kartaa. ummadda soomaaliyeed waa waddan taariikh dheer leh oo sidaa caawa halkan laga sheegayay oo qarniyaal soo jiray oo weligoodba maamuli jiray danaha ummadda soomaaliyeed. marka nasiib darro waxaa noqotay in 20 sannadood ugu dambeeyey iyo intii dagaalka sokeeye ugu dhacay in dad badan oo dunida caalamka ah ama dad soomaaliyeed ay rumaysteen in dadka soomaaliyeed ay yihiin dad aanan maamuli karin danaha waddankooda. waxaan aaminsanahay oo aan 100% ku kalsoonahay haddii ummadda soomaaliyeed ay isu timaado dhibaato kasta oo waddankeena hoynaala inay iyagu xalili karaan. waxaan halkan iga ballan qaadayaa haddii eebe idmo oo aan ku guulaysto jagadaas in ummadda soomaaliyeed aan noqon kii mideeya oo danta soomaaliyeed habeen iyo maalinba ka shaqeeya. maadaama waqtigu iska gaaban yahay hadda waxaan rabaa inaan idiin sheego 6 arrimood oo ugu waaweyn oon arko in soomaaliya u baahantay wax laga qabto. haddii aan kormar kooban iigu sameeyo ta ugu horreysa waa sugidda amniga iyo xoojinta garsoorka. ta labaad waa in dib loo heshiisiyaa dib u heshiin dhab ah ummadda soomaaliyeed iyo in wax laga qabto arrimaha siyaasadda ee murugsan ee muddooyinkii ugu dambeeyey dowladihii ku-meelgaarka ahaa iyo beesha caalamku ay waxba ka qabanin. waxaad dhici karaysa inay arrimaha ka warwareegeen sababtoo ah waa arrimo waqti dheer oo waqti badan qaata. sidaa darteed waxaan aaminsanahay soomaaliya haddii eebidmo nabadeeda iyo degnaanteedu waxa muhiim ah in arrimaha wax laga qabto. arrinta saddexaad waxaa weeyaan dib u dhiska dhaqaalaha iyo sidii dhaqaalaha loo kordhin lahaa. arrinta afaraad waa maamul wanaag. arrinta shanaad waxaa weeyaan dib u dejinta dadka qaxootiga iyo barakacayaasha. arrinta ugu dambaysa oo lixaad waxaa weeyaan siyaasadda arrimaha dibadda. marka waxaan isku dayayaa xoogaa kooban in mid kasta aan ka sheego aragtideedu waxay tahay. haddii aan ka bilaabo arrinta ku saabsan sugidda amniga, walaalayaal waxaan anigu aaminsanahay sida keliya ee nabadgelyada soomaaliya lagu sugi karaa waxaa kaliya oo sugi karaa inay tahay shacbiga ciidanka ummadda soomaaliyeed oo keliya baa sugi kara amniga soomaaliya. sidaa darteed waxaan aaminsanahay sidii ugu dhaqso badan in loo tababaro loona qalabeeyo ciidanka soomaaliyeed si ay u suroobi karto muddo 2 sannadood gudaheeda baan ku kalsoonahay inay kala wareegi karaan ciidanka amsom iyo ciidamada kale aan dariska. waxaa kaloo aan rajaynayaa haddii eebidmo oo aan jagada ku guulaysto inaan ku dadaalo sida ugu dhaqso badan in laga qaado cunaqabataynta lagu hayo waddanka soomaaliya xagga hubka. haddaan ka hadlo xagga garsoorka waxaan aaminsanahay si ay nabadii iyo kala dambeyntii usoo noqoto in loo baahan yahay in la xoojiyo ciidanka booliiska iyo ciidamada asluubta isla markaana sidii loo tababari lahaa garsoorayaal wanaagsan iyo kalkaaliyaashii la shaqeyn lahaa si garsoorka iyo cadaaladda ugu xoogaysto. haddii aan ka hadlo qaybta labaad oo ah arrinta ku saabsan dib u heshiisiinta, waxaan aaminsanahay walaalayaal in loo baahan yahay dib u heshiin dhab ah in waddankeedii laga sameeyo. haddii sidii dadkii halkan ka hadlay ka dhawaajiyeen hore uga dhawaajiyeen dib u heshiin dhab ah haddayna jirin way adkaanaysaa waddankeedii sidii u xasiloon lahaa nabadna ugu soo noqon lahayd. marka anigu waxaan aaminsanahay haddii eebidmo in laysu keeno ummadda soomaaliyeed gole iyaga oo dhan sidii ay uga hadli lahaayeen sidii waddankeena dadka dib looga heshiisin lahaa oo ay ka qayb galaan odayaal dhaqameedka, bulshada rayidka, haweenka, culamaa diinta. walaalayaal midnimada soomaalida sidii taariikhdeeda uu jilco uga dhawaajiyey
waxaa u soo dhintay aabbayaasheen iyo awowayaasheen oo u soo hargamay oo dhiiggooda u soo daadiyey marka waxaa muhiim ah in la xoojiyo midnimada soomaaliyeed marka waxaan walaalayaal aaminsanahay daweysiintu inay tahay arrin aada iyo aada u muhiim ah haddii aan u dhigbo arrinta ku saabsan dhowrkii arrimood oo aan ka dhawaajiyey oo ah arrimaha murugsan oo dowladdii ku-meelgaarka ahayd ama beesha caalamka waxaa la qaban haddaan tusaale laga siiyo dhowr qodob waxaa ka mid ah in ummadda soomaaliyeed loo baahanyay inay ka tashadaan doorashooyinka soo socda qaabkii loo qaban lahaa iyo qaabkii tirakoob loo sameyn lahaa iyo arrimaha kale oo ka mida inay ummadda soomaaliyeed ka wada hadlaan waxaa ka mid ah sidii khayraadka waddanka ku jira loo qaybsan lahaa hadday noqoto gobolka inkastoo khayraadkaas ku jira ama hadday noqotoba soomaali weyn haddii aan hadda u wareego qaybta saddexaad waa qaybta dhaqaalaha waxaan u arkaa laba qaybood inay muhiim tahay arrinta ku saabsan dhaqaalaha qaybta hore waxaa weeyaan sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa khaasatan dadka dhalinyarada oo dagaalkii sokeeyey 20 sannadood ugu dambeysay aan wax kale aqoonin dagaal mooyaane dadkaas dhalinyarada waxaa loo baahayay in meherad loo sameeyo si nabadda u jirto sidaa darteed waxaan aaminsanahay mashaariicda waaweyn ee waddanka laga dhisi doono in dadka dhalinyarada ah la doorbido sidii loo siin lahaa xirfad ay ku shaqaystaan muddo gaaban waxaa ka mid a waxyaalaha ay baran karaan farsamada gacanta oo muddo gaaban ku baran karaan sida koronto yaqaanka dhismaha sida looxyada lagu shaqeeyo ama makaanig ama baabuurta sida loo sameeyo iyo wixii la mida waxaa kale oo la xidhiidha arrinta ku saabsan shaqo abuurka dadka soomaaliyeed ee aan haysan meelad kale aan ahayn sida burcadbadeeda in iyagana dowladdu ay gacan siiso oo ka taageerto sidii ay wala soo bixi lahaa khayraadka badda ku jira iyo kalluumaysiga si aan maaragtay burcadbadeedaas wax looga qabto haddii aan u wareego arrinta ku saabsan dhaqaalaha ilaah mahadii waxyaalaha ugu wanaagsan oo anigu rajo weyn ku qabo in wax weyn laga qaban karo waa xagga dhaqaalaha marka ugu horeysa ilaah mahadii waddankeenu wuxuu leeyahay dhowr halgoole oo dhaqaale oo hadda aada iyo aada u xogsan sidaa dhammaanteen ogtihiin waxay leenahay shirkado isgaarsiinta telefoonada oo waddanka soomaaliya u dhigma kuwa dunida ah waxaa kale aad ka warqabtaan inaan leenahay shirkadaha xawaaladaha ama lacagta iyaguna aada iyo aada weyn marka haddaad labadaa egtid waa asaas wanaagsan oo laga bilaabi karo dhismaha dhaqaalaha dowladdu waxa ay leedahay door ay ka ciyaarto wax looga qaban lahaa waxyaalaha kale dowladdu gacan weyn ka geysan karto waxaa ka mid ah haggii waxbarashada caafimaadka iyo sidii ay wax u caawin lahayd dadka xoolo dhaqatada ee soomaaliyeed dhammaantiin walaalayaal saad ogtihiin soomaali xooggeedu waa xoolo dhaqato dakhliga ka soo gala badankeena oo lacagta adag ay ka xoogsadaan dadkeenu waa xoolaha la dhoofiyo haddii eebimo waxaan ku dadaalayaa xukuumadda la soo dhisi doono in ay gacan siiso dadka xoolo dhaqatada ah oo nasiib darro waxaa noqotay muddadii burburka uu jiray in dadka xoolo dhaqatada ah qiimaha ay xoolahooda ku iibiyaan in niman dilaaliina oo waddamada carabta jooga ama kuwa soomaaliyeed ay ku cadaadiyeen inay xoolahooda ku iibiyaan qiimo jaban oo wixii intaa ka badan ay ku heli lahaayeen ka hor istaagay haddii eebeymo waxaan ballan qaadayaa dowladda la soo dhisi doono haddii aan ku guulaysto tartankan aan ku jiro in ay dowladdu ku dadaali doonto sidii xoolo dhaqatada soomaaliyeed gacan loo siin lahaa ama xoolahooda loogu daweyn lahaa ama biyo loogu qodi lahaa ama suuqo cusub oo xoolaha loo dhoofiyo aan hore u jirin dowladdu u furi lahayd walaalayaal sida aad ka warqabtaan dhammaantiin aada ogtihiin ummadda soomaaliyeed ilaahay wuxuu siiyey haybad gaar ahaan xagga ganacsiga iyo baacmushtarka sidaad ula socotaan waddankan aan joogno magaalada minneapolis iyo halkanba iyo waddanka kenya ama east africa dhammaan ummadda soomaaliyeed oo ganacsiga ku jira guulo waaweyn bay ka gaadeen anigu dhowaan intii aan muqdisho tegin waxaan dhowr cashi sii maray waddanka kenya khaasatan magaalada nairobi waxyaalaha aada iyo aada ididiila ii geliya aan kusoo arkay waxaa ka mid a
in xaafad ku taala Nairobi oo la yidhaaho Eastleigh halkaa waxaa degan dad badan oo Soomaaliyeed oo ganacsato ah 6-7 sannadood ka hor meeshaas wax ganacsiga ma jirin maanta haddaad eegtid waddanka Kenya dadka dhaqaalaheeda aad iyo aad u darsaa waxay lahayn dadkaas Soomaaliyeed oo Nairobi degan dhaqaalaha waddanka Kenya door weyn bay ka ciyaaraan waayo waxa ay keeneen baamisir iyo waxa hore ka jiray dalka Kenya marka waxaan ku kalsoonahay waxyaalahan aad hadda dadkii halkan ka hadlay oo dhammaantood waxay sheegeen dhibaatooyin badan oo Soomaaliya ka jira laakiin waxaa jira waxyaalo badan oo Soomaalidu leedahay oo runtii ayna qiimo weyseenin waxaa ka mid ah sidii waddankeena dhaqaalihiisu soo noqon lahaa waxaan aaminsanahay ummadda Soomaaliyeed oo ku jirta baamisirkii ganacsiga haddii dalka dib ugu soo noqdaan inay waddanka dhisi doonaan dhaqaalaheeduna Soomaaliya uu kor u kici doono sidaa dhammaantii ka warqabta walaalayaal waddanka waxa dhisa waa dadka caadiga oo aan dowladda ku jirin Soomaalidu hore waxay odhan jireen meesha kaliya loo shaqo tagaa waa dowladda dunida aan hadda joogno oo casriga ah waxa dhaqaale dhisa waa dadka ganacsiga ku jira oo baamisharka ku jira weeyaan marka haddii eebeydmo xukuumadda la soo dhisi doono haddii aan ku guulaysto aan jagada eebeydmo waxaan ku dadaali doonaa doorka dowladda ay ciyaarayso inay tahay sidii ay gacan u siin lahayd dadka baamisharka ee Soomaaliyeed oo ay u abuuri lahayd jawi wanaagsan oo baamisharka u wanaagsan sidii ay gacan ugu siin lahayd in waxyaalaha ku saabsan sharciyada dadka lagu xidho markii baamishar cusub furayaan waxaasoo kale loo fududeeyo si uuna ugu dhicin iyo jab dadka doonaya inay waddanka ku soo noqdaan oo baamishar ka sameeyaan dhaqaalaha haddaan waqti waa si gaaban yahan ka gudbo waan u gudbo xagga dowlad wanaagga waxaan haddii eebeydmo ku dadaali doonaa in la sameeyo hay-ada dunidao dhan laga yaqaano oo xagga ku saabsan hanti dhowrka markaa waxaa haddii eebeydmo aan ku dadaali doonaa in la sameeyo hay-ado dhowra maalka ummadda Soomaaliyeed iyo hay-ado dowladdu leedahay oo madax bannaan oo xisaabaha iyo waxa ay iyaguna sameeyaan arrinta shanaad haddaan u gudbo waa arrintii dad badan ka dhawaajiyeen halkan waad la socotaan dad badan oo Soomaaliyeed waxay ku jiraan xeryaha qaxootiga wadamada aan dariska nahay iyo dad badan oo malaayiin ah oo iyaguna waddanka gudihiisa barakacyaal ah haddii eebeydmo waxaan ku dadaali doonaa dowladda Soomaaliyeed iyo hay-adaha dunida caanka ku ah gargaarka dadka qaxootiga ah iyagoo iskaashanaya sida ugu dhaqso badan dadkaas Soomaaliyeed in dib loo dejiyo oo ay ka muuqdaan bulshada Soomaaliyeed haddii aan ku soo gabagabeeyo qodobka ugu dambeeya oo siyaasadda arrimaha dibadda dad badanna halkan way ka dhawaajiyeen waxaan aaminsanahay ummadda Soomaaliyeed waa xubin ka mid ah dunida weligood waxaa lagu yaqaanay ciis iyo sharaf inay ka mid yihiin wadamada dunida haddii eebeydmo oo ay noqoto inaan ku guulaysto jagada waxaan ku dadaalanaa in ummadda Soomaaliyeed ay noqoto dadkii dunida kula dhaqma nabad iyo wanaag iyo inaan dunida la yeelano iskaashi iyo xiriir iyo inaan baamishar la galo waxaa kale aan u sheeganaa dowladaha aan dariska nahay waxaan kula dhaqmanaa daris wanaag iyo ixtiraam waxaa dhici karaysa arrimo badan oo ku saabsan siyaasadda Soomaalida iyo dowladaha dariskana inay si wax u arag arrimahaas hadday yimaadaan waxaan aaminsanahay wax kasta waxaa lagu xalili karaa wada hadal iyo ixtiraam waxaa kale oo haddii eebeydmo ku dadaali doonaa in aan ixtiraamno heshiisyadii dowladihii gumeelgaarka iyo kuwii ka horreeyay ay sharaxeen in ummadda Soomaaliyeed ixtiraami doonto marka walaalayaal haddaan hadalkii soo gabagabeeyo waxa aan aad iyo aad ugu kalsoonahay inkastoo dhibaatooyin badan oo waddankeeni maanta horyaallo marxalada ku jiraan waxaan aad ugu kalsoonahay ummadda Soomaaliyeed waa dad haddii eebeydmo maamuli kara waddankooda waa dad waddankooda dib u dhisi kara waxa kale oo Soomaaliya ka hor imaan kara oo baabi'in kara waa haddii midnimada Soomaaliyeed la waayo
haddii aanan la waayin midnimada Soomaaliyeed dhibaato kasta oo jirta way xalin doonaa haddii ay beedmo waxaan rajeynayaa muddo gaaban oo aan saa u fogeen maybe 2 sannadood ama 3 sannadood in dhaqaalaha Soomaaliyeed uu noqon doono mid aad u soo xogista meesha dunida oo dhan laga yidhaaho waa waddan baaba'ay ama afka qalaad lagu yidhaaho failed state waxaan rajeyn doonaa inuu odhan doono Soomaaliya mucjisadii ka dhacay ma aragteen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu هذه دكتور عبد الرحمن المسيحي هاي شرحتها ويوسي وكنت كريا وكمان كانوا بحروا قبلوا هذا كان كنت كريا بعد سرعة وسط نقولنا مناسبة دين هم Karo
tahay sow mooga dhaxala wowgayna tahay sow mooga isagu kuleeyahay sow mooga waxsee uu samaantaar ligaygo irta kama dhinti karo aqoon yare
Esta única de Somalia.
dadka hadda la suuqay baarlamaanka waxba kama jiraan wadada xaalo la suuqayo waxaana ninka la amriika yaa doonahay waan salaamay dhamaantiin Columbus shacabka weyn ee Columbus most of them waxaan ugu badayaa waa khaatimo iyo Soomaalida laakiin maanta waxaan helay chance aan ugu helo Soomaali oo dhan marka waxaan rabaa inaan idin sheego waxyar intaan shirkayga bilaaban waxaan u malaynayaa inay intaan ku ilaawin sideen hadda aynu mataqaana aynu ku dagaalamayno sidii aynu u heli lahayn qof daacad ah oo aqoon-yahana ayaan u malaynayaa inaynu maanta ku heli doono kumaanku qof oo iyaguna ama dhakhaatiir ha noqdo ama looyaraada inay ku noqon doonaan dalkii waxyaabo badanna dalkeena ay ka bedeli doonaan dalkeena dhibaatooyin badan baa runtii saamaysay Soomaaliyeed waxaynu u baahan nahay true man oo dadkeena mideeya dadka dhibaataysan qaxoontida ku jirana iyo caruuraha maalin kasta markaa ku dhalanaya ka soo saara dalkii dib ugu soo celiya dalkeena waa dal barwaaqo ah aan idin sheegay waad ogtihiin waxaynu leenahay badda ugu weyn badaha ugu waaweyn hal bad maaha Indian Ocean Red Sea baa waddankeena ku yaala waxaynu leenahay buraha ugu wanaagsan ee macdanta ku jirto beeraynu leenahay wabiyaynu leenahay markay gaaladu tagaan dalkeena ay xamar iyo arkan iyo hagsan luusiya marka iyo waxay leeyihiin waa waddanka waddanka loo soo dalxiisi jiray inaguna waxaanu leenahay inaguna waxaynu leenahay maraykan baanu joognaa lacag yar baanu qaadanay subxaana wa tacaala intaa iyo in ka badan baa dalkeena taala waxaa taala in barwaaqo soorankaas aynu la soo baxno inaynu maxay ahayd toolitaanjirin baynu waxaa taanjirin aynu u nahay war barwaaqaa taala dalkeena khayraad baa yaala wax kastaa yaala we are great ma nihiin dad dhibaataysan ee inaga niyadeena ahaan waxaynu isugu sheegnay inay dhibaatayna hayso dhibaatayna ma hayso qaxoontiga joogooda taanjirin baa tiibay haddayna maanta dalkeena ku noqono waxyaabo badan baa inoo suurtagelaya aynu barna caruurteena الله وهذا وحويه والدي كلا صار دونا قوم كلا تيجي دونا مركه حتى وحن رجينا يقول بحاول أنا قال لا شكوني من
ilaahay ha kula garab galo madaxweyne haddaad u soo baxdana waxaa leeyahay Soomaalidu waxay tiraahdaa waa in madaxweyne la helaa laakiin ilaahay madaxweyne khayr lahana siiyo kii ummadda miday lahaa ilaahay hana siiyo kii noo horseeday lahaa wanaag iyo midnimada ilaahay hana siiyo kii danyarta u danayn lahaayna ilaahay hana siiyo halkaasaan uga bixiyaa ku soo dhowaaw garab taagannahay salaamada waa mahadsantihiin iyo dumarko waa mahadsan aad iyo aad yaa walaalaheen iyo dadkeennii waxa weeyaan hadal baan hore u dhigtay oo waxa weeye waxaan idhi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waxaan ula gol lahaa sidaynu la soconno dalkaaynu joogno aynu ku noolnahay wax ku baranay ee ganacsi ku leenahay ee waqti ku korsanno hore u toosiyey waxaana dib u dhigtay mudane gobolkan madaxdiisii joogtay ee jaaliyadda Soomaaliyeed waxaana jecelahay inaan ku soo dhaweeyo xasan cumar oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed anoo magacaas ku hadlay ku soo dhaweynaya magaalada Columbus Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi oo ah ku sharaxan madaxweynenimada Soomaaliya aniga waxay muuqda hobba ay muuqda sababtu waxa weeyaan dad aad u fara badan oo aysan 10 sano ka hor maanan haysan 6 sano ka hor marka waa hob weyn waxaan rajaynaynaa tallaabadaas in ay miro dhaliso oo aanu helno hogaamiye waxa weeyaan kumana eedanayna isaga sababtu waxa weeye dad Soomaalida waa direen waa la kala tegay waddankeennina gacanta waxaa ku haya hay-ado ajnabi ah iyo dad aan Soomaali ahayn waxaan qabaa ninka madaxweynaha noqonaya Soomaaliga marka ugu horreysa horta inuu ogaado iyuu madaxweyne u noqonaya wuxuu madaxweyne u noqonayaa Soomaali yaa tiin uga baahan tahay Soomaali waxaana wax walba ugu qiimo badan aqoon kasta lahow oo wax kasta lahow qofka bini aadamka haddii uusan isku kalsoonayn oo uusan lahayn wadno wanaagsan iyo qalbi wanaagsan oo Soomaalinimo iyo kalsooni qofnimo oo asaga ku jirta aqoontuna waxba tari mayso tagada loo dhiibana tari maayo haddii anigu aaminsanahay inaan madaxweyne noqon karin haddaanan Kambaala tegin haddaan anigu aaminsanahay inaan madaxweyne noqon karin haddii aan Maraykan tegin haddaan aaminsanahay inaan madaxweyne noqon karin haddaana Kibaki u tegin madaxweyne ma noqon karo marka ninkii saas ku fakarayo oo aaminsan Soomaalida la hadlaa maalmaha waxay ku leeyihiin ninkan Ethiopia saaxiib la ahay madaxweyne ma noqon karo ninkan Kenya la ahay ma noqon karo macnaheedu waxa weeye inaynu iibinay neeshinimadeeni inaynu iibinay qiimaheeni inaynu iibinay waxaynu value aynu lahaan jirnay oo uu ka hadlayo sheekhu galabtay oo ahayd ninka Soomaaliga ahu inuu ka faano oo yiraahdo dadka dhan inuu asagu sameeyo bari waxaa la shaqayn jiray niman Maraykan 92 waxaa tagay Muqdisho waxaa tagay nimanka Maraykanka ahaa operation restore oo baad jiray oo ay Maraykanku tageen Soomaaliya ninka Soomaaliga marka dadka xamar baa tagnay haddana baydhaba u gudbay meel kasta wariga wiilasha haysta giddigood qarameeye ubadka qiiradu hayso ka qosliyaanu rabnaaye qasrigii madaxtooyo qaadirkay ha ku geeye hadal baan ka qaboojiyo qowrsankiina yidhaahdee noqo diinta quweeya qiimadii waddankeenna qorshakii u sameeye qalcaddii sayidkii iyo qansax dheeriyayeed qasabyo liinku abuura qasrigii madaxtooyo qaadirkay ha ku geeye hadal maanka qaboojiyo qowrsankiina yidhaahdee noqo diinta quweeya waxba idinku badin maayo laba tixdaad keliya gabay khawaatixya loogu fadhiga Soomaaliya hubka iska dhiga iyo midaynu rabnaa halganka Soomaalida marka laga hadlayo waxaa la yidhahaa SWL way soo shaqaysay waa run laakiin sidii daraawiishtu may soo dagaalamin khaatimo lafteedu halkii daraawiishtu ay ka sii waday
khaatumo leeyahay khaatumo hadafkeeda ugu weyn waa midnimada soomaaliya waxaa laga yaabaa danaha iyaga hoose reermo iyaga fanaanku kalaadmidnimada Somala ay hamada beenaad ku hameysaan habkankeenu wada daadsan yahay tan iyo hawaaye sidii haliyo nirigteedii baad kala halowdeen oo haadkiiyo waraabu ka dharag hilibkii mandeeqe oo hay waxaan la ooyaa shacbigan heeda dowgaahe haweenkii sacabkiga dhaaf wadantaale markaan dhameeyo وهي وحن له يا شعبي من هذا الدوغان هوانكي عرورا بلدعي كلا أوغان وهالكي هلكا وحقوقاي أنا دذيني وبكردي وحيدان هلاي باديك ساني وهبرو ذاقي الشعبي وهو يوبت كليدي البولا عروشيو هدى الهنا غرور قويسو وكوكو ملوي عذاب السورانتيني ورين هدي ليسو ديلو قول مهانتاني هلا أقبالي سوان تضغيشك ويساني والقياك وحقوق ويهان أدديني وبكرديك وحيدان هلين باديك ساني هوار بعد الكيني وكدعي هايبادي قراني اندي يقريك بانلوكي هدن بديني هم ببردي شركة قرتي وطونا وبيودي أنا في أرسي وكذا برويني الرجال وما هذا الدولار وهي دور شيء بيتروه هذا من معلانه أو سري برام بستأكله كوابانه من هو يستنيه يرد وهين كوابانه أنت ذي خلاص شو كلامه سهلاي أنت أروبلا دادي أروبلا دادي وهالك هالك وحبوك وين أنت ذي وبكريه واحد أنا هني بعد سنة هذا هو كمان سيا وكاري سوغانه وهو راسه الاسمه هذا السلوبيدي وعلى سوي فسي سبن كهابيله فرديه الإنسان اللي فهم كله الماي وهلي عيار المنظرة وهلي عيار المنظرة هيراني هبليه لسوها يميت ريات اللي يلوبي يبقى يخطري السادو دوفته بالنوري وهو الذي ما بيقول الوضع إفراحي إذا يقدر كله ويرد مركي يلي ورنا على نفسه وهرجع كيسه أفرد هذه هو يوم الصارمة ترى ما هو الوضع من دماء المشهد يديني قبيل هو أفسانية التي كان خير كودي ومدود الهرمز طلع على شيء كبير يرتايا روسيا يهود وبعديك الذين أفرتنا هنام وصلنا وكين السوداء إن الشيء كان لحنا رأته كرجالي ويرجسي حار هو المانشيسو وذير دولي الرجال خير قطع وايو والروداء يتكتان هذا يبون داره ونوها كان ذلك الأطفال الصورو والهرمر كان قلبي أعو كهياي وبكريه واحد لغير بعد سنة نطلع على فعله قامن كو صديالو غوريو ايانه او غرغا الهو شعبي غيرا ليادو هايسو كسو غادوينا لوغاتي عربكا غرمت سو ديربو ددبا غمر كوسنوله غورو برواغي النصيرو كيغا حالا غوغسو كوديو كادرو غديو بولاله بدغدو سناغيو كور غبنيو بوساسو الأمة قلبي ربكتو قارسي أواجب قرية السمية بيدا والله قواه ما نشايو إلى كسماي يقول وين ميرسي القاعدي قلبكم يبقوا مركي وقويا عندكم ذلكم كل الوجود كحمر وينه إلى كافر هو الكاسرية جوها